sido sadkii midnimo sareeyada dhale salka dhigayso ma qaranku xarnimo Soomaaliya wanaaga sido sadkii midnimo sareeyada dhale salka dhigayso ma qaranku Somaliland Allah usiyad nabada sugano barwaqa ku soo Somaliland bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiiyay agaasimayaasha wasaaradaha dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska iyo agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud iyo waliba maarayaha TV-ga qaranka haddaba barnaamijkaasi waa kan daawasho wacan naadigii hore loo oran jiray naadiga akhriska himilo oo aan caawa u furayno magac cusub jawi cusub shaqo cusub akademiyada akhriska iyo qoraalka himilo si xagga waxaan ugu dhajin weynaa meesha noo qaaday baasha naga weynay wax qabadkayga weynaan doona insha Allah waxa caawa aad iyo aad uga dhargi doontaan message fiican idin siin doonaa si aad intiina halkan fadhida intaad ka timaadeen si aad u gaarsiisaan wixii hore noogu soo qabsamay muddo sanadkan jirnay iyo waxaanu hiigsanayna dhamaanteen waad ka waxa qabici doontaan bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله إلهي نبديسا أيام أي نور دورو عدو جيسنا أجبيه وحن تعالى إن الدقيقة ذو يستعجنو هي استعانتها جمهورية الصوماليلاند waxaan yeerayaa si challenges nooga hor yimid caqabadihi nooga hor yimid intaan ku soo jirnay hawshan oo idin sharaxo agaasimaha naadiga agaasimaha akademiyada akhriska iyo qoraalka himilo Faarax Bashiir Sheekh Axmed wax badan ka hadlimayo wax weeyaan agaasimuhu wax weeyaan oral ma hayso oo waa action ka badan oo implementation department marka howlaha naadiga ayaan doonayay si guud inaan ku sharxo naadiga dhammaan howlaha naadiga waxa ay la xiriiraan shaqo walba ama qorshe walba oo la xiriira higsiga fogeen halka waarno oo ah in la helo bulsho akhriska iyo qoraalku caado yihiin all planska dhammaan qorshayaasha aan fulino kuwaas ay la xiriiraan waxa qorshaha wax qabadka naadiga waxa kamid ah naadigu wuxuu soo bandhigaa buugaagta soo bandhigo waxa kale oo daafura buugaagta cusub daafura oo dhamaantood lagu dhiirigelinayo akhristaha iyo qoraalka yar si loo helo bulsho akhriska iyo qoraalku caado yihiin marka laga gudbo buugaagtu soo bandhigo naadigu waxa uu kalo soo bandhigaa naadigu sameeyaa wacyigelin barnaamij wacyigelina oo leh 3 main targets leh 3 target oo kala duwan leh
targetka koowaad waxa weeyaan waa ardayda jaamacadaha oo iyagu yani aan u adeegsano kanal ama dariiq ah qof aqoon u leh yani jaamacadaha oo haldoorada barnaamijkaana magaciisa waxaa la yidhahdaa haldoon iyo haldoor oo waxa weeyaan qofkii haldoorka ahaa iyo haldoon marka barnaamijka wacyigelinta qaybtiisa labaadna wuxuu ka dhacaa iskuullada wuxuu uga dhacaa iyadoo aanu si toos ugu tagno annagoo caqliga dadka ku wacyigelinayna muhiimadda akhriska iyo qoraalku leeyihiin iyo cawaaqib xumadii ka dhalatay akhris qoris la-aanta aanu sameynaa wacyigelin aanu u sameyn tartanka oo isagana ah incentive creation program oo aanu ugu talagalnay in akhristayaal iyo qoraal inuu kusoo baxo haddaba muddadii naadigu ama akademiyadu ay shaqaynaysay waxaa ka hor yimid caqabado fara badan waxa weeyaan waxba kuu suurtogeli mayeen haddaad yani mataqaanaa aadan financially aada u dhisnayn waayo fan ama meel uu wax kasoo gala naadiga online contributionkeedna aanu jirin arrinkaana inagu sababto mar walba arrimo security-ga la xiriira security markaan leeyahay ammaankii caadiga ama waa basic necessities oo yani qofku hadduu sagxadda la dagaalamayo waa dhibaata iyadana tartanka aanu caawa u fadhina halkan magaciisa la yidhahdo maantaba sheeko keen ayaa ah waxyaabaha naadigu u qabto oo aan ugu talagalnay dhiirigelinta qoraaga daada yar iyo akristahaba inaasaan ugu iibsan waan idin salaamayaa dhammaantiin farxad iiga weyne maanta ma jirto inaan halkan aan kusoo gaadho akademiyadda akhriska iyo qoraalka himilo annagoo markii ugu horeysaan isu imanaynay aan xubnahan hadda halkan joogay aada uga firfircoon aan isugu yeedhinay meel maqaaxiya isugu nimid maqaaxi shaah laga cabo iskooska xeroor ku taala oo magaceeda maqaaxida Faysal la yiraahdo markii aan bilaabnay isugu nimid ilaa halkan ay wax gaari ismaan aan lahayn annaga iyo xubnaha kale halkan fadhiya aada uga firfircoon farxad maanta iiga weyne ma jirto buuggii ugu horreeyay markaan soo bandhigaynay inkastoo qoraal hadalka aan wax badan u habayn doono gudoomiyaha ururka halkan wax badan ka hadli doona waxaanu ku soo bandhignay iskuul horseed la yidhaayo xaafadda jaamacad gunta ku yaala hool uu leeyahay baanu ku soo bandhigno dhalinyarta xaafaddaanu isugu yeedhno kaarna maanaan qaybino waxaana maanaan qaybino hool iskuulkaasi leeyahaynu fadhiisano samuurada dhex taallo oo ayaanu dadkii isugu yeedhno halkaasanu buugga markii ugu horreysay kusoo bandhignay waa kolba markaa inta uu awooddaadu taagan tahay wey intii markaa dhalinyartii xaafadda ayaa markaa aanu ku furnay halkaas markaa buuggu ugu horreysay aanu kusoo bandhignay oo naadigu uu kusoo bandhigay marka farxadda u weyne waxa weeye wax si yaroo fudud loo bilaabay maanta inuu halkaa marayo maantana Hargeysa naadiga akhriska ugu xooggan ee ka jira inkastoo magacii hadda akademiyada lagu daray haddana naadi ku xooggan oo akhriso maanta Hargeysa jira ma jiro marka waxaan ugu baaqayaa oo kale naadiyaasha gobolada waddanka ka jira waxa caawiyo gacan qabta maamulada gobolada ka jira barasaabka ama maayarka marka waxaan ugu baaqaynaa imaka inta loogahay naadiyaasha akhriska buurama ka jiro kale kirada iyo markii buug soo bandhigay kharashkooda markaa maayarka ka bixiya maayarka buurama oo ku mahadsan taas bedelkeeda markaana waxaan lahaa caasimadda Hargeysa maayarkeeda iyo xubnaha golaha deegaanka iyo maamulka markaa maadaama naadigan akademiyada akhriska ee himilo ay tahay naadiga kaliya ugu xooggan ee Hargeysa laba dooro ceeb raaci lahayd leeyli Hargeysa laga waayay naadi akhrisba ayaa maanta samaysatay naadi himilo la yiraahdo maanta Hargeysa ka samaysmay oo Hargeysa way ka badbaaday in naadi akhrislaan ay ku dhacdo maadaama maanta leeyli Hargeysa ay badbaadiyeen waxaan ugu baaqayaa markaa maamulka gobolka kan gobolka iyo markaa kan degmadaba inay markaa hiili hore garab istaagaan sida markaa warkaan hore u dhacdayna dad badan markaa qiimo halkan fadhiya markaa aad iyo aad bay usoo gacan qabteen marka waxaan ugu baaqayaa dadka reer Hargeysa iyo markaa dowlad iyo shacabba inay aad iyo aad u gacan qabtaan oo markaa hawl u baahdaan nimada markaa la soo dhaweeyo maadaama aynaan lahayn markaa
naadi al-akhris aad isu dhaay afar badan oo kala doordoorna meelihiin barta kanayna xoojina kuwa kale iska iman doonaan marka aad aad u baahantihiin jecelahay in marka ugu horeysa iyaga aan dadaalkii fiicnaa ay sameeyeen iyo sidii wanaagsanayd ee ay salka uga soo qaadeen hawshooda imika maanta aynu arkayno halkay marayso kulley hawl yar may qabanin iyagoo weliba daadooda markaad u eegto inta ay laaleegyihiin isxilqaan ay sameeyeen dadaalkaana aynu jecel lahay inaynu mar walba la garab taagnaano oo sidaa fiicane ay u dadaalayaan inagoo inugu tiirsanaadaan fikir iyo dhiirigelin badanna way nooga baahan yihiin taasoo ay shicibka oo keliya maaha dawladduna aynu jeclahay inay ka qayb qaadato kulley soomaalidu waxay tidhahdaa dabkii baxaya ayaa dab lagu qabsadaa marka iyaga waxaan jeclaan lahaa in kulley dadaalka aynu mar labaad ugu mahadnaqno xidhiir fiicanna aynu la yeelanno cid kasta oo ama shacbiga ha noqoto ama dawladda ha noqoto ama ururada kale ee akaademiyada kale ee qoraalka ha noqotee marka hore mahad dhammaanteed ilaahay baa alxamdulilah rabbil caalamiin marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa qolada inoo suurto gelisay halkan aan isugu nimaadno ee dhalinyarta aad iyo aad baad mahadsantihiin kelmadda runtii kooban ee halkan aan ka odhan karaa waxa weeyaan anigoo marka hore aada ugu faraxsan dhalinyar halkan isugu timid oo markaa waxa weeyaan rag iyo dumarba leh oo raba inay horumariyaan aqoonta runtii noocay doontaba ahaatee aad baad mahadsantihiin in wax la akhriyo iyo in wax la barto waxa inagu booriyey oo inoo sheegay diinteenna islaamka oo ilaahay markaa nebi maxamed usoo diray calayhi salaatu wasalaam oo iqra ay kusoo degtay markii ugu horreysay nebiga oo qaarul xilaa ku jira uu malagu markaa lahaa iqra uu isna lahaa wamaa ana biqaari waxba ma akhriyo waxa weeyaan waa qoraalkii ama aqoontii ugu horreysay ee bashariyaddan ilaahay markaa usoo saaray horta taasi markaa waa waxa weeyaan qodobka asaasiga ee dhammaan markaa wax weeyaan akhris iyo waxbarasho oo dhan ay ka duulayso taana runtii waad ku mahadsantihiin mar haddii dareenkaasi runtii uu jiro waxaanu si kooban runtii u tilmaami lahaa qofka raba inuu wax bedelo ama inuu naadi sameeyo ama inuu mujtamaca kusoo kordhiyo waxa weeyaan isagaa looga baahan yahay inuu dhowr sifaad oo muhiima yeesho leanna waxaa carabtu yidhaahdaan faaqidu shay laa yucdiih qofka haddaanu waxba haynin waxba ma gudbin karo marka waxaa loo baahan yahay inuu qofku sifaad yeesho sifaadkaa uu leeyahay kow waxa ka haddaynu muslimiin nahay in markaa waxa weeyaan qofku uu ahaado markaa waxa weeyaan qof muslima oo saliim alcaqiida ah caqiidadiisu wanaagsan tahay oo aaminsan diinta islaamka ilaahay subxaana wa tacaala markaa wax weeyaan uu inoo markaa waxa weeyaan inoo soo jideeyey taa markaa uu soo dhaafo qofku noqdo qof ilaahay aaminsan oo wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ilaahay qofka wuxuu abuuraa unta inuu ilaahay oo keliya uun markaa addoon noqdo waxaa looga baahan yahay qofku markaa inuu noqdo uu qodobkaa markaa waxa weeyaan uu soo dhaafo qof noqdo mujaahidan linafsihi qof naftiisa runtii ka adag oo naftiisa muxuu uga adag yahay naftu waxay u baahan tahay in la tarbiyadeeyo oo la hogaamiyo sidii nebi maxamedba markii waxduu kusoo degayay ugu horreysay uu buurtaa ugu xidhnaan jiray ee halkaa markaa uu ugu khilweyn jiray isagoo diinba kusoo degin qofku hadduu rabo inuu wax bedelo waa inuu horta naftiisa ka adag yahay marka hore uu naftiisa ku hogaamin karo waxa wanaagsan waxa xunna markaa uu ka reebi karo waa qodob aad iyo aad muhiim u ah kaa marka uu soo dhaafo waxaa loo baahan yahay inuu noqdo qof markaa waxa weeyaan qaadir cala alkasab ah oo wax kasban kara oo la soo bixi kara wixii ilaahay markaa isaga uu ku irsaaqay qodobkaa inuu runtii yeesho ayaa loo baahan yahay waxaa aad iyo aad markaa muhiim ah oo ilaahay markaa wax weeyaan ka baryaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala markaa inaga dhigo kuwa marka hore naftooda ku filaada oo filaanshaha ugu horeeya wuxuu noqonayaa qofku markuu ilaahay abuuro mas-uul weeye horta marka hore ilaahay cilaaqo fiican la yeesho marka labaadna markaa naftiisii markaa uu ku cilaaqada ku hagaajiyo marka saddexaadna mujtamaca runtii uu soo dego oo imika waxaad moodaa darajada aad usoo degteen runtii waa darajadii mujtamaca in wax laga qabto baahiyihii dadku ay lahaayeen ayay ka mid tahay in naadigan la sameeyo oo markaa akhriskii kor loo qaado waa baahi runtii la dareemayo wey baahidaana waxaa keentay qofku markuu wax ogaado inuu marka waxa weeyaan runtii uu ka fikiro dhalinyartii bilowday aad bay u mahadsan yihiin aad iyo aad baad markaa wax u mahadsan yihiin ilahina waxaan ka rajaynayaa fii miisaan xasanaadka inuu ugu daro halkan lajnadan amr bilmacruuf wanahyi cala almunkar
runtii waxa weeyaan waa arrin aada muhiim u ah waxyaabaha ay ka shaqeeyaan waxaa ka mid a odayaashaasi in dadka wanaagga la faro xumaantana laga reebo wanaagga runtii la faraya waxaa ka mid a dee qofku inuu wanaagsanaado oo qof aabbiyo hooye leh oo waalidkiisana adeeca ilaahayna ka baqdo uu noqdo mujtamaciisana wax kusoo kordhiya oo markaa aan dee noqon mujtamaca qof fasaad kusoo kordhiya kaasaa runtii markaa muhiima inuu noqdo marka waxyaabaha daahirada aan la dagaalamayno waxaa ka mid a diincaygu wuu inoogu badan yahay innaga diinta oo la caayo ilaahay oo la caayo nebigoo la caayo waxyaabaha dadkana gaalnimada runtii u keena weeye mujtamacaadka marka la daraaseeyey laba qolo uma kaloon baa diinta siday nowcayda qolo waa talyaaniga qolna waa filistiin weeyaan markaad aada u eegto labadaa qole ay naga horreeyey innagaad mooddaa inaynu darajadii runtii imika aynu qaadanay labaad taasna runtii markaa waxa weeyaan waa arrin aad cajiib u ah markaa horta qodobkaa inaan ka dadaalo ayaa runtii loo baahan yahay waxaa runtii loo baahan yahay in wada shaqayn aad yeelataan dhallinyarta iyo lajnada alamr bilmacruuf wannahyi can lmunkar oo runtii wanaag fara badan runtii markaa waxa weeyaan dadka fara waxyaabaha ay qabtaan waxaa ka mid a runtii inay hawlo badan oo mujtamacu uu leeyahay ay runtii ay ka war doonaan ay ka mid tahay runtii markaa waxa weeyaan baahiyaha dadka masaakiinta haysta iyo markaa waxa weeyaan dadka akhlaaqdooda runtii la xumaynayo oo dhan iminka buuggaasi markaa waxaa loo baahan yahay inaad waxa weeyaan sidii guurka loo fududayn lahaa guurka in la fududeeyo hablaha iyo inamada iyo mujtamaceedna runtii waxa weeyaan fasaad badan baa ku soo waxa weeyaan buuggaas waxaa loo baahan yahay markaa waxa weeyaan inaa idinkana aan buuggaa idinku wareejinno ood wax ku dartaan sidii guurku uu u noqon lahaa guur fudud oo loo heli lahaa markaa waxa weeyaan usra muslima guri wanaagsan oo islaama loo heli lahaa oo wanaagsan waxaynu meelaha ka maqalnaa markaa inay hay-aduhu yidhaahdaan waxaa lala dagaalamayaa aids iyo waxyaabo aan jirin baa lala dagaalamaya waxaa lagula dagaalami karaa in xalaasha la raadiyo xaaraantana lala dagaalamo kowna waxa ka markaa waxa weeyaan in guur xalaala markaa la fududeeyo oo markaa waxa weeyaan halkan aad ka aasaastaan ood ku dartaan sanduuq la yidhaahdo sanduuqa zawaajka guurka dhalinyarta laga taageero in sanduuqa runtii aad markan ka aasaastaan ood ku dartaan ayaa loo baahan yahay maadaama mas-uuliyiin dawladduna ay joogaan in mashruuca markaa ay qayb laga noqdo oo dadka oo dhan runtii kaa uu ka qayb qaato haddaynu rabno in akhriskuna inoo fiicnaado dhalinyartuna inoo wanaagsanaato odhan lahaa markaa waxa weeyaan inaynu caawa bilowno sanduuqa markaa waxa weeyaan zawaajka iyo guurka inaynu caawa bilowno rag iyo dumarba aan lajnada iyo markaa naadigana ay ka wada shaqeeyaan maalgelintiisiina aynu raadinno haddii ilaahay qadaro sanadka soo socda ama 6 bilood soo socda inaynu 100 inan iyo 100 hablood isu guurino sida saxdii runtii waa caynkaa weeye ujeedooyinka xafladan loo qabtay haddaan waxoogaa yar ka taataabto aanan ku dheeraanin ujeedooyinka xafladan loo qabtay koow waxaa ka mid ahayd sanad guuradii akaadamiyadda ama naadiga in la xuso oo bishan ku beegneed sidoo kale waxaa ka mid ahayd in la soo xidho tartanka la yidhaahdo maantaba sheeko keen oo naadigu qabto oo ka mid ah howlaha naadigu qabto qaban jiray intuu naadigana ahaa maanta akaadamiyadu yahayna jecelnahay inaanu sii wadno waxaa ka mid ah furitaanka library-ga akaadamiyadu furtay ee la yidhaahdo gaariyo library oo gaariyo ugu magac darnay maadaama marxuun inagu qaali ahaa waxaa ka mid ah midowga sida walaalkii maxamed salebaan ka hadlay fikirkaab iyo himilo runaantii waxaan maqli jirnay xisbiyo siyaasadeed oo ku biiro ururo siyaasadeed isku biiraan laakiin dhallinyaradu inay isku biiraanna waa wax cusub oo furmay taasina waxay ka timid in la xaliyo problemiska na hortaagan hadday tahay financial problemska oo looga wada gudbi karo in hal loo geeyey wax weyn bay noqon kartaa waxaa ka mid ah oo naadiga sababaha la iskugu keena naadiyadan ah asadka uu leeyahay akaadamiyaddu waxa weeyaan fikirka maskaxda muruqa iyo maalka yar ee ay haystaan xubnaha dhalinyarta ee ka midka runtii dhalinyar ahaan haddii wax badan la isku geeyo oo la isku yimaado oo qoqobnaanta iyo kala daadsanaanta laga tago waxaa la horseedi karaa in ummadduna midowdo wax badanna la qabto awood fara badan oo dehan baana inagu jirta hadday maskax tahay iyo hadday muruq tahayba maalkana lama yaraysan karo waayo hal dollar isku darna ayaa wax weyn noqonaya sidaa awgeed ayaa iyaduna ay ka mid ah himilada akaadamiyada arkaysaan ee halka ku taallaa higsigeedu waa in la helo bulsho akhriska iyo qoraalka cilmi baadhista suugaanta afka intuba kor u qaada oo ku horumarta in la helo taasna waxaa lagu gaari karaa
midowga aanu soo sheegnay iyo in laga sii badiyo intii karaana mar walba la awoodayo. runtii baahiyuhu iska fara badan yihiin, dunida gebigeedaana iska baahiya. Soomaali ahaan aniga odhan jirnay dunidu ma wada tabanowdo, laakiinse waxaan aaminsanahay haddii dhan financial tahay baahidu oo waxa ugu simbalsan ee la xalin karo oo ay caqli unba u baahan tahay. marka maalinbana waxaan baranay intaan meesha joognay, maalinbana heer bay taagneed. maantana waxaanu qaangaad u nahay inaanu in ka badan intii hore aanu runtii u sii talaabsano. intii ay meeshan jirtayna marka laga gudbo waxaanu bulshada gaarsiino runtii annaga training noo ahayd. annaga wax ku barananay, annaga aqoon noo kordhisay, annaga bulshada ku dhex galnay, annaga ogaanay bulshadeedu sida u dhaqanto, annaga ogaanay bulshadu waxay ku wanaagsan tahay, annaga ogaanay bulshadeeda wax wal oo ay u baahan tahay. taasina waxa door muhiim ka qaadanaysaa berri dhalinyaradu oo kuwii mustaqbalka waddanka hagi lahaa inay sii fahmaan mujtamacooda iyo ummadooda uga dhex galaan. bulshada dhammaanteedna waa uga mahadnaqanaa sidii ay noola soo shaqeeyeen. kuwaan wax gaarsiinana ma aha waxaan ugu faanino, laakiinse oo waxna looga baahnaa waajibna saarnaa weeyaan. dalka annagaa leh, cidina nagama xigto. annagaa u dowlada, annagaa u xooga, annagaa u shacaba, annagaa u raga, annagaa u dumara, soo ma? marka waxaan leenahay runtii dalka maadaama inagu wada leenahay dee waxqabsigiisuna inta mas-uuliyadda noo haysana inaan taageerno, iyaguna inaan taageeraan baa la iskaga baahan yahay. laakiinse dhaqaajintu waxay ku jirtaa awooddu waa shacabka. runtii taasaa keentay inay akaademiyadu maanta halka kan gaadho. maxaa yeelay ahmiyadda qoraalka iyo akhriskaba sheekhi baa noo sheegay. aayaddii ugu horreysay nabiyuna maxamed salawaatullahi alayhi wasallam lagu soo dejiyey iqra bay ahayd. wixii ilaahay ugu hor abuurayna qalim ku ahaa. xigmadda ku jirta waa wada fahmi karnaa marka. sababtu ilaahay aayaddii ugu horreysay iyo abuuritaankii ugu horreeyay baa uga dhigay xigmad weyn baa ku jirta. marka la soo ururiyana waxaa la odhan karaa akhris iyo qoraalku waaba aqoontade. aqoontan la sheegayaaba waa akhris iyo qoraalo ama bay ka timaada oo runtii dee tadawurkeeda lasii badiyo. bulsho ahaana maanta dee runtii waddanka heerku soo maray waa wada ogsoonahay. anu waxaan ahay dadka waddanka la da-daa, waxaanu ku faraxsanahay. somalilan dee dadka dibadda kaga soo hadlan u sheegaynaa dadka la da-daa guddoomiyaala ee waddankii la da-daa birina iyagaa madaxweyneyaal noqonaya. markaas somalilan way socotay, way tagtay, way dhaqaaqday, meel baana gaadhibaan. waxaanu soo aaminsanahay maskax iyo muruq iyo maalba inaan leenahay. iska daa akaademiyada inaan dal dhisi karno, meel gaadhsiin karno. runtii dalkan asadka uu leeyahayna ay inaga tahay ama baan aaminsanahay. weliba dhalinyarada madaxa madow ayaa aaminsanahay. runtii akaademiyadu waxay soo dhaweynaysaa xidhiidh wanaagsan ay la leedahay guddiga wanaag fariista. waxaan ballan qaadanaa in alle intii awooddeeda ah inaanu buuggaa qayb laxaadle ka qaadano. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ama aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa inaan aragno dhalinyaro runtii sidanoo kale u dadaalaysa oo ku faanaysa diinteeda, dhaqankooda, dalkooda iyo dadkooda. runtii farxad aad iyo aad weyn ayay noo tahay. waana runtii wax macnaha waddan kastaaba wuxuu leeyahay horumarkiisu dhallinyaronimada ayaa runtii qiimo weyn ka ah. waxaan qolada himilo u sheegayaa caawa ama runtii aan ku gawaabinayaa himilooyin badan oo dhallinyaradu leedahay runtii inay rimooweyn marka ayaguna inay runtii ay u adkaystaan maadaama himilooyin badan oo dhallinyaradu hore u lahaayeen inay rimooweyn oo ay ka mid tahay dhallinyaro badan inay siyaasadda dalka galaan oo imaka halkan qaar badan inay hor fadhiyaan maxaa leedahay agaasimayaal fara badan oo ay golaha deegaanka intaasoo maayar ama intaasoo dhallinyara ay ku guulaysteen golayaashii deegaanka. waxaan kale ognahay soonyo oo ah dalada guud ee dhallinyarada xilligii la bilaabay waxay sidan oo kale 2002 dadkii bilaabaan ka mid ahaa. sidan oo kale baan runtii macnaha xilliga xaflay waan ilaa laakiin baan kale waan isbedelay. marka runtii waxaad himilo iyadana la higsanayay ama wax leedo vision wax afka qalaad lagu yiraahdo. marka iyadana waan ognahay soonyo inay rimowday oo noqotay dalad weyn oo dhallinyarada runtii Soomaaliland wax badan u qabatay. marka waxaan runtii u soo jeedinayaa himilo in macnaha riyada ama qofku inuu macnaha hamiga uu leeyahay inuu gaari karo laakiin uu baahan yahay dulqaad badan. marka runtii anoo ka hadlay magaca ururada bulshada aad iyo aad baan ugu mahad celinaa ugu hambalyeynaa ururka himilo akademiyada aad iyo aad waan runtii waan u soo dhaweynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بالحقيقة آدي آد بي
farxad iigu tahay inaan caawa ka soo qayb galo munaasabadan isla markaana la faraxno la ciidno akaademiyadda akhriska iyo qoraalka himilo oo saa markii hore ahaa ma garanaysaa naadi laakiinse hadda u diga rogtay akaademiyad ha yeeshee waxaan markaa maaragtay sida uu ururkani ma garanaysaa u shaqeeyey iyo showdka uu gooyey iyo ma garanaysaa sida uu himiladiisii u xaqiijiyey boqolkiiba 95 sida hadda laga sheegayey waxaan rajaynayaa inaanay dib noqonayn inuu ma garanaysaa mas'uuliyaadka academy laga doonayana inuu qaban doono insha Allah bilxaqiiqatan academy marka la leeyahay waxa weeye ma garanaysaa marka laga tago hawlahan la wado waxa research baa imanaya academic writing-ka ama qoraalka academiga imanaya taxliil iyo analysis baa imanaya marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ku guuleysan doontaan annaguna wixii khibradaanu leenahay haddii aanu nahay ururka qorayaasha Somaliland waanu idinla garab taagannahay xaqiiqatan hawshanaynu caawa u joogno halkan ee ah in la abaal mariyo ama in ma garanaysaa aqoonsi la siiyo dhalinyaro ma garanaysaa maaragtay ku tartamaysay sheekooyin taa qudheeda ururka qoraaga Somaliland waa uu ka qayb qaatay oo xubnihiisa maaragtay oon ka mid ahay waxaanu ka qayb qaadanay ma garanaysaa sidii bal sheekooyinka loo xulaayay ma garanaysaa cidda ku guuleysatay ugu horreyntii waxaa maaragtay soo koobay ama soo kala saaray ururka ama academiga himilo ayaa soo kala saaray marka waxa la noo soo gudbiyey 11 sheeko ama 11 qoraal ayaa la noo soo gudbiyey 11ka dabeedna qoraal ayaanu maaragtay anagoo ku eegayna ma garanaysaa maaragtay nuxurka iyo ma garanaysaa quruxda qoraalkaasi uu leeyahay uu xambaarsan yahay ayaanu ku qiimeynaynay marka siday u kala horeeyeen oo aanu ka wada midaysnayn taqriiban guddideedii qiimeynaysay ayaynu u fadhinaa caawa in dhalinyaradaas ma garanaysaa halkaas ma garanaysaa maaragtay aqoonsi lagu siiyo ugu dambayn waxaan kolley halkan maaragtay mar labaad ka hambalyeynaya ururka academiga akhriska himilo tallaabadan qiimaha badan ay qaadeen waanaanu idinku garab taagannahay insha Allah waxaanu rajaynaynaa maaragtay inaynu wada shaqeyno sidaas leegna ururada kale jirana wixii ma garanaysaa maaragtay gacan ay nooga baahdaan haddaan ururka qorayaasha Somaliland diyaar baanay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan ka gudbayaa markan qof kasta wuxuu maanka ku hayaa yaa ku guuleystay tartankii maantaba sheeko keen ma wiilbaa ma gabadhbaa farda la isku haya maxaa la iskaga faani waxaan jecelahay hadda waxaan rabaad cidda ku guuleysatay kaalinta labaad cidda ku guuleysatay kaalinta saddexaad cidda ku guuleysatay iyo afraad iyo shanaad oo aan raacin doono waxaan jecelahay lama garanayo anoo xataa ma garanayo anu cidda tahay marka waxaan ku wareejinayaa guddoomiye runtii tartankii goorahanba u fadhinay inaan abaalmarinta siino waxaan leenahay xubnihii ka soo qayb galay oo dhan runtii ninna lagama badin laakiin baratinkumaa la kala dheereeyey maalin maalmaha ka miduu midka kalena kaalinta koowaad iyo labaad ba geli doonaa laakiin kuwii ilaahay oo calfay haddii aanu bixin lahayn runtii lacag waxba ma tarayso annagu waxaan ugu talagalnay asad qofku nagu xusuusto haddii uu ilmihiisana kole wada dhalinyaro xaasma leh uu ilmihiisana tusi doono baasha saa u dhalaalaysa dahab maaha waa biyo dahab marka laakiinse magacii qofkaa ku xusan kaalinta koowaad waxaa farxad weyn noo ah sidiina loo soo gudbiyey inay ku guuleysatay inan oo qortay sheekada la yidhaha argosi inantaas waa Muna Axmed Cumar halka kana timaado kaalinta labaad waxaa ku guuleystay wiil waxaa la yidhaha Maxamed F Xaaji Xasan waa sidina loogu soo qoray marka inay soo dhawaadaan reerkan
kaalinta saddexaad iyana waxaa ku guulaysatay inan doorkan waxaan u malaynayaa hablihii baa inamadii dhaafay laakiin waa u daynaa walana nagamay badine waa u daynaa markaa waxaan kusoo dhaweynaa nada yuusuf cumar oo qortay cabdikariim xuseen cabdilaahi kaalinta afraad waxaa ku guulaystay cabdisalaan axmed muuse agaasimaha wasaaradda howlaha guud waxaan u mahadnaqayaa ururka naadiga akhristayaasha himilo iyo naadiga kale ay isku beereen akademiyadda wada noqdeen waanan u hambalyeynayaa dhalinyarta iyadana sidoo kale dhalinyarta xafladda laba kolley xafladdan say u dhigan tahay waa laba qaybood sanad guuradii ururka akademiyadda waan u hambalyeynayo iyo dhalinyartii mutaysatay abaalmarinta labadiinaba waxaan idin leeyahay hambalyo intaa haddii aan kaga gudbo kolley in yar baan ka hadlayo waa waqti badan ma jiro haddii aynu ka hadalno xagga dhalinyarta mid baan ka yar boorinaya dhalinyarteena intayna joogtay inta kaleba oo ah qabyaaladda oo runtii moodid iminka inaynu ka dhiganay wax aada u qurux badanba waayo waxaad gelaysaa facebooka waxaad arkaysaa waxaa la soo barbar dhigayaa dad aan isku tayta lahayn ayaa la soo barbar dhigayaa waxaad arkaysaa gruubkaa ku badan ee dhalinyarta waxaan leeyahay aynu xagga qabyaaladda aadka foolsho xum leh ee maqaaxiyo aynu kaga sheekaysanno aynu wax kale ku bedelno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii munaasabadan qiimaha weyn leh wixii hadal runtii muhiim ahaa waa la yidhi aad baa looga hadlay Soomaalidu waxay tiraahdaa anaa haray runtii looma hadlo aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa uguna faraxsanahay naadigan akhriska akademiyadda maxay himilo iyo dadaalka ay ugu jiraan siday dhalinyarada Soomaaliland runtii uga wacyi gelin lahaayeen ay ugu gudbin lahaayeen runtii fariimo waxtar leh waa run inagu haddaynu dadka Soomaalida sideedaba waxa weeye dhaqan ahaan akhriska iyo qoraalku ma ahayn wax runtii fac weyn inagu leh oo inagu soo abtirsanayay muddo dheer waxa jira inaynu dadkeenu waxay isugu gudbin jireen hadalka marka gabayga runtii ugu jiray meel fiican kaasaynu hiddo u lahayn runtii oo dadku hidaysan jireen la kala dhaxli jiray laakiin xagga akhriska iyo qoraalku waa wax inaga yimi meelo kale bulshadana aanay dhaqan dheer runtii aanay u lahayn wayse jirtay runtii in badan iminka in dadaal loogu jiray in arrintaa la dhiirigeliyo laakiin bulshadeenu runtii ma aha bulsho dhiirigelisa akhriska bulsho dhiirigelisa madadaalada ma aha bulsho dhiirigelisa waxyaalaha runtii ma aha waa bulsho halkii madadaalada iyo waxaasoo dhan qaadkaa u galay arrintaana waxa weeye waa inay dadkeenu aada ula socdaan dadku maalintii qaadka lacag badan bay ku bixiyaan laakiin madadaalada kuma bixiyaan buugga ma iibsadaan oo ragga wax weeye wax qorayay ee dhalinyarada dadaalayay dee dhibaato badan baa ka soo marta markuu qofku inforskiisa iyo dadaalkiisa iyo dareenkiisa soo bandhigo hadday dadku aqbali waayaan oo soo dhaweyn waayaan qaar cusubina kuma dhiiranayaan kii isna isodhan maayo wax kala sameen marka dadka reer Soomaaliland guud ahaan iyo xukuumadda oo waxa weeye aynu ku dhiirinayno runtii aan isleenahayna waa xukuumad intii hore uga dhaganugul waxa weeye shacabka waynu ku dhiirigelinaynaa inay xarumaha soo celiso qayb ka qaadato taageerto waxaynu ku dhiirigelinaynaa sida culimadu imka halkan ka sheegeen inay ka qayb qaadato in la fududeeyo guurka oo waxa weeye loo fududeeyo dadka reer Soomaaliland si ay isu guursan lahayn waxa kale oo runtii aad iyo aad aynu doonayna bulshadeenu haddaanay dadku ka qayb qaadan aanay dadku dareemin aanay dadku ku dadaalin aanay qorshahooda ku darin dawladdu kaligeed waxa kama qaban karto runtii hadday xataa meel samayso hadday ay dhaqaale ku bixiso haddaanay dadkii imanayn haddaanay dadkii istaag waxa weeye arrintaasi ma runtii xoog ma yeelanayso marka in dadkeena lagu waaniyo ama lagu wacyi geliyana runtii inaynu iska kaashano ayaa muhiim oo bulshadeenu arrimaha ay aad u dareento waxaan markan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa soo nool garab taagnaa maarayaha ishiga qaranka sharciga agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud mukhtaar maxamed cali
intaas ayaan barnaamijkan daawadayaal ku soo gabagabeynaa intaan barnaamijkan mid lamada ku kulmi doonana waxaanu kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allow usiyaad nabada sugano barwaaqo ku soor Somaliland allow usiyaad nabada sugano barwaaqo ku soor Somaliland